بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والنبض داوديال كسر دوادا برامج كارا وندين كديارنا عنتوين كلا دوان اللي استعمال قار كمده ودمدا قارة أفريقيا كارهان دلكين جمهورية سوماليلاند. تطبعات كان وحين كسر قادنا عنسته لحوحده داوديال إن بدن ويدين كمده أيام مركا يدقوه هذا كسر دعدا لحوحده إسويدينية معناها لحوحده waayo laxooxda waa taynuga isticmaalka badanahay ee subax walba aynu isticmaalo qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadan doonana waxa kamid ah waa maxay laxooxi xagee ayaa laga sameeyaa laxooxda goormaas la sameeyaa waa maxay sageedka haroorku faa'iido ma leeyahay Soomaaliland sama ka bixi karaa aynu soo qaadano qodobka horeeya barnaamijka waa maxay laxooxi taawashawaan ereyga laxoox waa erey laga isticmaalo wadamada qaaradda geeska Afrika asal ahaan ka soo jeeda wadamada India, Bangladesh iyo wadamada Carabta. Laxooxdu waa shay kamid ah cuntooyinka laga isticmaalo qaaradda geeska Afrika. Waxa si xawliya looga isticmaalo wadamada Ethiopia, Somaliland, Djibouti iyo meelo kale. inta badan waxa la isticmaalaa subaxa hore marka uu waagu bariyo. dhaqan ahaan waa wax caado u ah dadka Soomaalida oo isticmaali jireen awowyadii hore. haddaba laxooxdu waa imisa nooc. laxooxdu waxay u qaybsantaa dhowr qaybood oo laga isticmaalo wadamada kala duwan ee adduunka, balse wadamada aynu dariska nahay sida Carabta oo u taqaan khubus, Ethiopia oo u taqaan canjeero ama daafi, Soomaalida ayaa waxay adeegsadaan oo kaliya ereyga magaca laxoox iyo magacyo kale oo inaan haatan halkan ku soo koobi karin. waa tahay ka bogatay ayaan filayaa ma sha Allah qodobkaasi laxooxi qodobka intaynaan kala guda galin qodobka labaad ee barnaamijka qadar xaysiisa. waa tahay aynu soo qaadano qodobka xiga ee barnaamijkeena. goorma ayaa la sameeyaa laxooxda laga isticmaalo dalkeena Somaliland? aynu wada daawano. laxooxda laga isticmaalo dalkeena waxa la sameeyaa habeenkii si loo cuno aroorta hore. waxa lagu qooshaa baaldi loogu talagalay. waxa lagu daraa biyo iyo milix si ay u yeelato damcad macaan. isla markaasina waxa la adkeeyaa afka hore ee baaldiga. waxa ku dhex jira weel yar oo loogu talagalay in la daro. waxana laga adkeeyaa afka hore ee baaldiga si ay u faxdo. marka ay faxdo waxay u dubantaa si qurux badan. waxay samaysaa daldalool yar yar oo dadka ku dhaqan qaaradda geeska Afrika u yaqaanaan indho. waana tarantaa. waxay u bislaataa si qurux badan. waxay ku bislaataa wax ka yar 5 minid. waxa loo adeegsadaa waxa loo yaqaan dhuxusha. waxa lagu shubaa girgire. intaasi kadib waxa la saaraa daawaha loogu talagalay laxooxda in lagu sameeyo. isla markaasina uu kululaadaa. inta aan lagu shubin waxa la mariyaa maro yar oo la marinayo saliid oo loo yaqaan masaxaad si aanay laxooxdu u qabsanin daawaha. marka ay bislaato waxay isu bedeshaa midabka casaan ama bunni. haddaba haddii aanay fixin maxaa isbedelaa laxooxdu? laxooxda marka aanay fixin ma dubanto. waxay xagga sare ku samaysaa qoosh, mana bislaato, mana samayso daldalool yar yar oo indhaha loogu talagalay ah. daawahana way qabsataa, damcadna ma yeelato. laxooxda laga isticmaalo dalkeena Somaliland ma laha adkaysin. waxa la cuni karaa oo kaliya 24 saacadood. laakiin laxooxda laga isticmaalo wadamada aynu dariska nahay waxay u yaqaanaan magacyo kale. haddii aan soo qaadano Ethiopia way ka duwan tahay laxooxda Somaliland xagga dhadhanka, waana ka waaweyn tahay. laxooxda Ethiopia xilliga la samaynayo waxa laga sameeyaa haruur kaliya, waxaana ay qooshnaataa muddo 2 maalmood ah. xagga dalaga isku mid ayay u soo baxaan dalagyada laga sameeyo laxooxda. waxay afka hore kaga xidhaan maro yar oo khafiifa. waa tahay ka wada bogatay goorta la sameeyo laxooxda iyo waxa laga sameeyo intaba. waa maxay geedka haroorku? muxuu faa'iido u leeyahay dadka aadamaha ah balse ma ka baxaa Somaliland?
waa kan isagoo faahfaahsan aynu daawano. Haruurka oo ka baxa deegaanada qaaradda Geeska Afrika waxa uu haatan si xawliya uga baxaa galbeedka Somaliland. Waxa lagu beeraa meel leh carro qoyan sida deegaanada Arabsiyo, Wajaale, Gabiile iyo meelo kale. Haruurka waxa loo yaqaanaa seed, waxaana la beeraa xilli roobaadka guga. Marka seedka la beero waxa uu ku soo baxaa muddo hal bil ah. Waxa goobtii lagu riday seedka ka soo baxa dhir yar oo u eeg midabka dooga. Dhirtaasi waxa loo sameeyaa biyo fadhiisin si ay xawli ugu baxaan. waxaana dhererka geedka haruurku uu gaaraa inta u dhaxaysa 6 mitir ilaa 7 mitir. Geedka haruurka ayaa ku bislaada muddo 7 bilood ah, waxaana uu madaxa hore ku sameeyaa midho duuban. Midhahaasi markay bislaadaan, dadka beeraleyda waxay u adeegsadaan qalab ay ugu talagaleen. Marka hore way engejiyaan waxaanay dhigaan cadceedda. Marka uu engego si looga saaro qashinka, waxa lagu tumaa tibta iyo mooyaha. Kadib waxa loo isticmaalaa iyadoon waxba laga bedelin cunto ahaan. Sidoo kale, marka la tumo waxay u iibgeeyeen magaalooyinka. Dadka beeraleyda ayaa ku bedesha cuntooyin kale sida sonkorta oo aan ka bixin qaaradda Geeska Afrika. Dadka ku dhaqan qaaradda Geeska Afrika waxay gaadheen horumar ballaaran. Haruurka waxay geliyaan mishiin si ay u daqiijiyaan isla markaasna ay ka samaystaan laxoox. Maasha Allah, ka wada bogata ayaan filayaa laxooxdii iyo micnaheedii iyo geedka haruurka iyo waliba waxa faa'iidooyinka uu leeyahay dadka aadamaha. وكنتي gabagabadii barnaamijkeena waa soo saarista anigoo Nimcaan Axmed Jardaa, farsamadii isku dibaridkii filan qaadista iyo editingkii injineer Maxamed Cabdilaahi Ismaaciil Maadey. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Ismaaciil Xuseen oo kamid ah ardayda kulliyadda beeraha ka dhigata jaamacadda Hargeysa ee magaalada Hargeysa. barnaamijkan mid lamid ah intaan isugu imaanayna waxaan idinkaga tegaynaa dhamaantood. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.